waxay dhahdaan dunidu badaha dunida isku xidha cidda xukunta shan lixda kanaale dunida isku xidha mid mooyaane inta kale muslim buu ku yaalaa Panama Canal oo labada Maraykan dhexdooda ah ayuu baan gacanta muslimka ku jiray ama inta kale waa Bab al-Mandab waa Canal Suez waa Jabal al-Tariq waa Bosfor ama marma labada uu leeyahay Turkigu waa Hormuz kan Iran iyo Oman iyo inta u dhaxaysa waxa kanaal dunida isku xidha gacanta muslimku ku jira waa wasad ad-dunya Maraykan intaasuu xoog ku jooga si uu maamuli kariyo Ingiriis Turkiga intaasay heshiis kula galeen 100 sanadood khilaafadii Uthmaaniga markii la ridayay heshiisyadii la galay waxa kamid ah 100 sano ee soo socda kanaaladaas inaanu iyagu lahayn free in lagu mari karo 2023 ayay ku dhan yihiin 100 sanadood 1923 ayuu ahaa heshiisku 100 sanadood waa 23 markay gaadho ayuu dhamaanaya wixii ka dambeeyay gacanta Turkiga ku wareegaya gacanta Turkiga hadduu ku wareego Russia dunida meel ay kala xidhiidha male Turkiga inay marto mooyaane biyo kululba male iyo wax xagaa ka xigo oo dhame si kale haddaynu tilmaamno waxay degan yihiin meel Ilaahay dhigay energy-ga dunida shidaalka dunidana 70% wax ku dhow waxa Ilaahay hoos dhigay inta muslimku dego khaasatan iyo meelaha laga soo bilaabo ilaa iyo inta muslimku dego ayaa shidaalka energy-ga dunida hoos yaala عالم الإسلامي وحكم دي ودنا عن خام مادة خام لو سو دوفينين مادة خام كي ودنا دو طالع وح كستبين هليان anything لو بهاي هاي دول كودينو ليه هاي والتصنيع أما industry جو بهاي هاي كو أدونك كني إلهي بوق عنتي سورة مركو هرو كشرات تار رميصو ما أنت الدنيا غير قلبيت به كامية عدًا بوي أرى كذبت هذا ما شرته لكن هذا واحد صدق سنة كهر تريد الدولة دوا وين وكلو شوع اللي يرادو ينا قيبته هذا كتليه جري لبس سنة جده هاد بشوعيد بالدولة اللواي لبس سنة جده هاد أي ما ينقدر سيدي تصبح لفري داته دولة كذا ما يساعد عادي خير قلبي ما أنت ووق ينو دالي لأن يردو دي باللونسان أخلاقيات كي كلمين دتكو دي حمحمابا كورسا مريا دقالوه دي باسي بربريا دشو دي باسي يرانسا ودنا دقاركود 1.25 باي مريا that means بقول كويس لبدا بقول قفك كوبان بقول نيا بقول قبضودي دتكي بدلي لها مر دلان بقول يشري لا تنقف باي دلان إذن ودت جبوبي وتردو دسي يراتي ودلينتو دسي بابا إيشو ودقالة بربرنا كسعده وحتى يونتي قدي وحدا بلا ما إنه ديبو قلقلمه يوروبا تنسيك على جوجا إيش إنجليز كبحي تيك على ولي وسكو أوضن تهاي إيه لهي بلايو إنكلابو كيرو كورونا يوح كلا صباحي ديمقراطية دي الدنيا دلوجو بشارين يوا طالع ننن اعتراف مايو تي أفريقيا كو كلام كا وأنك عسكري يرتاي سيدي بالله سوهيا وحبك بتشرار أنا مدحويران اللي سو تاجي هاي إن سيستم كو ما ها سيستم فضو ظهرت ده بني مال الدنيا ماها سامها لكن واحد تلمامنا نقاط الضعف جينا يقلبنا مغضان ماله اللي دشدو كتشري ويصاب بيريان values كودي يقانين قيم كي هيين وصيلوا مياه حتى قيم كي دولة نماء لهايين يصيلوا مياه دينا يقول لمان معناه ما هنا ددو حوجي ستي هذا نكسيل لي ده تدوس هالكيوم عدو واجه هبا يدو ما تقولي سندي هذا وح نقطات تقولي سنس إلا أنا مسلم هو صار نقنية وأنا لا محالة إنه دبو صار نقضه لكن اللي صار نقضه وحكاه الرأية
وهذا فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض بإلهيل حورك يداد حورت وتجيا وحدتك أنفعي أنا وهريا إن الأرض لله يورثها إلهي سبحانه وتعالى دولك يسقى عليه ودخل سينا يا دومه سعيد دونه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا إسلام وصون قنية لكن وصون قنية معناه هذا ما هي أنت نسكفر فردينه oo isku akhrino niyadan ilaahno ee quraanka ku taala iyo xadiiska ku taala ayaa islaamku iska soo noqonaya oo dunida gaaladuna waa dumi doontaa insha Allah inana waa ka boodi doona warkaasi waxba kama jiraan waxa wax ka jiraan haddii la shaqeeyo unba wax soo noqonaya intaynu hurudna waqtigu uu sii dheeraan nabi maxamed iyadoo maka la joogo oo laga xoog batay oo saxaabadiisii hortiisa lagu tumayo waxba uu qaban kari waayay ayuu saxaabi ka mid oo nafti haysaa u yimi maasuu yidhi ilaahay rasuulkiisa maad ilaahay noo baridi alaa tadcu lana alaa maad ilaahay guul noo weydiisi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay taariikhda bini aadamku say u socoto idinka dadkii idinka horreeyey qaar baa intay ilaahay iyo rasuushiisa rumeeyeen la qabtay buu nabigu yidhi oo inta god lagu riday mishaar halka laga saaray oo laba loo kala jeexay ilaahay baan ku dhaartay diintan ilaahay waa u hiilin doonaa oo way guulaysan doontaa buu nabigu yidhi makaa lagu hortaagay markaasuu yidhi sanca ilaa xadaramowt ayaa ay socon doonaan iyagoo qofku inuu adhiga yeyga iyo waraabaa ka ceshada mooyaane cidna aanu ka baqaynin nimanka maka ka bixi kari leh ee lagu tumayo ayuu nabigu wuxuu u sheegayaa diintan intay guulaysato inay sanci xadaramowt dhex socon doonaan iyagoo aan cidna ka baqaynin xoolahooda inay yeyga ka ceshadaan mooyaane walaakinakum qawmun tastacjiluun buu nabigu yidhi waxaa setihiin dad degdegaya degdeg waa meel iska tuur adaan waxba dhisan iminkaan haf iyo haf ka siinaya waa meel iska tuur taasi waxba samayn mayso laakiin waxay u baahan tahay dadku inay tooda dhistaan saxaabadii jabtay lama odhanin khaalid baa xariif ahaayo intuu xagga dambe idinka maray idin jabiyey ee waxaa lagu yidhi qul huwa min cindi anfusikum talaxumadu idinka timi waa ilaahay mushkiladu idinka timi haddaad taagan tuulada nagu xigta ha nagu soo durkina waa ka soo adhigiinu uu soo dhaafay halkii uu daaqi jiray sanadihii hore ayaa taagantay inaad duni kale wax ka qabato iyo dad kale inaad wax la qabsato daaye tuulaba tan ku xigtay adhiga ka ilaashanaysaa ilaada halkaa reerkiinu ma degi jirine waa ka soo tallowdeen xuduuddii oo goormaad reeg iska celin marka ciddaad iskaba ilaalinaysa hadduu walaalkaa yahay iyo kii aad dad bay isugu dhoweydeen yaad iska celin kartaa markaa soomaali cidima jabinay iyadaa isjabisay xaqiiqadu waa kaa muslim cidima jabinay isagaa isjabiyey carabiga daawa nimanka halkaa ina dhigay oo yaba meel kula mid ay jiifaane maxay ku dhigaan kuma dhaafaan aad taageersanaysaa kuma dhaamo haddaad adigu wax dhaanta aad ahayd inaad keento cumar almukhtaar baa laga hayaa kelmada ah naxnu laa nastaslim ya cumar almukhtaar kii talyaaniga ay isku hayeen libiya yaa wuxuu yidhi annagu isma dhiibno ama waanu guulaysanaa ama waanu dhimannaa buu yidhi yani wuxuu tilmaamayaa noloshu isdhiibka inaanay aqoon haddaba alislaamu laa maxaalata qaadim waa soo socda wa fardun calayna inaynu camal samayno qul icmaluu wasayara allahu camalakum warasuuluhu walmu'minuun waxaa layna yidhi war camal sameeya shaqo qabta alle iyo rasuulkiisa iyo mu'miniintuba way arki doonaan waxaa qabataane laakiin laynama odhan qul naamu wasayansurukum allahu meel lakuma taallo seexda ilaahay baa idin guulaynaya meel ay ku qorantay ma jirto laakiin waxa isweydiinta leh adigu safkaa ma ku biiraysaa kicinaya soo celinaya mise daawadayaasha qaybta maxaa la yidhaahdaa daawadayaasha mustamiiciina alkiraam good audience-kaad ka mid noqon doontaa dadka daawanaya dunida sida wax uga dhacayaan ma kuwaasaad ka mid tahay mise kuwa diintooda iyo dadnimadooda iyo dalkooda ayaad ka mid noqonaysaa idan adigu ilaahay waxba kaagama baahna laakiin adaa lagu itixaamaya lagu eegaya